nabadgelyo saaxiibayaal maantana waxaa dabka noo saaran ama aan xogahu ka tataaban doonaa hadafka iyo dadaalka waxa ay kala yihiin. dadaalka iyo hadafku waa laba arrimood oo muhiim ah oo ka caawinaya qofka inuu gaadho guulo, horumar iyo farxad. dadaalku waxaa laga dheehan karaa dhowr arrimood oo muhiim ah. marka aad dejiso hadaf, waxaad heshaa jiho micno noloshaada. hadafku wuxuu noqon karaa mid weyn ama mid yar, laakiin waxaa ugu muhiimsan in aad leedahay hadaf. hadafkaagu wuxuu kaa caawinayaa in aad ku gudubto caqabado fara badan. noloshu waxay noqon kartaa mid aad u qurux badan haddii aad leedahay hadaf cad oo aad si joogto ah u gaarto. hadafkaaga ayaa noqonaya sababta aad u kacdo subax kasta. guulaha ugu waaweyn ee la gaadho waxay ka yimaadaan dadaalka joogtada ah. haddii aad rabto in aad gaarto hadafkaaga, waxaa muhiim ah in aad si joogtaa u shaqayso. dadaalku waa muuqaalka ama akshanka aad samaynayso in aad gaarto yoolkaaga. mar kasta oo aad dadaal ku bixiso, waxaad ka dhigaysaa khibrad iyo aqoon kaa caawin doono inaad si fudud u gaarto hadafkaaga. ha ka baqin dadaalka adag. qof kasta oo guulaysto wuxuu ka dhacay dhibaatooyin iyo caqabado badan. haddii aad isdejiso oo aad si joogto ah ugu shaqayso hadafkaaga, waad gaari doontaa waxa aad doonayso. caqabadaha iyo dhibaatooyinka waa wax laga filan karo marka aad samaynayso dadaal si aad u gaarto hadaf. ma jiro safar fudud, laakiin waa muhiim in aad iska ilaaliso caqabadaha iyo inaad ka niyadjabto waxay hadafkaaga ahaa. haddii aad doonayso inaad gaadho hadafkaaga, waa muhiim in aad aaminto awooddaada iyo kartidaada. aamin in aad tahay qof ku habboon inuu gaadho riyadiisa. marka aad aaminsan tahay, waxaad noqonaysaa mid ka shaqeeya himiladiisa iyo fogaanta wax kasta oo hortiisa ka arko. aaminaadda naftaada waa furaha guusha. si aad u guulaysato hadafkaaga, waa muhiim in aad si joogto ah u socoto oo aad dib u soo eegto horumarkaaga. isku day inaad cabbirto guulaha yaryar ee aad gaartay. joogtaynta waa furaha. xitaa marka ay tahay inaad hagaajiso qorshahaaga ama aad qaadato tillaabooyin cusub, muhiim ma ahan inaad istaagto. ma jiro guulo degdeg ah oo dhab ah. ku raaxayso safarkaaga oo samee tillaabooyin yaryar. guushu waa geedi socod. ka raaxayso mar kasta aad horumar samayso. guuldarradu waxay kaa caawin kartaa in aad noqoto mid xooggan oo go'aan iyo hadafkiisa ay cad yihiin. dadaalka iyo hadafku waa laba arrimood oo ku horseedi karo in aad gaarto guushaada. halka dadaalku uu yahay xoojinta iyo geedi socodka aad marayso mar kasta waddo cusub.